وادي السلامي waxaan rabaa inaan ka hadlo dad la iloobay ee walaalaheena ee xabsiyada daafaha adduunka ku kala xiran inaan ka hadlaan rabaa arrintooda dawlad hadday jirto dawlad Soomaali la dhaho hadday jirto waa in loo gurmadaa wiilasha Soomaaliyeed ee ku kala xiran Seychelles Iran India America Kenya Puntland iyo Somaliland kulligood waxa lagu haystaa inay yihiin burcad badeed ayaa lagu haystaa rag badooda ilaalsanayo oo duulaan lagu yahay in badooda la dhaco ayaa waxa lagu tilmaamay inay yihiin burcad badeed si loo xalaalaysto badda Soomaaliya laga soo bilaabo 2010 ilaa iyo maanta waxay ku jiraan xabsiyadaasi ku jiraan ilaa iyo hadeer dawlad ka hadasha ma jiro dawlad u gurmata ma jiro dad yiri hal soo maxkamadeeyo ma jiro Mareykanka intay soo qaadeen waxay keeneen maxkamadaha adduunka kulli waa soo celiyeen waxa la geeyay maxkamadda Hague waxa la yiri wiilashan burcabadeedka ayaa heynaa noo xukuma sharciyadii maxkamadda la gagadiyay waxa la yiri ilaa iyo hadeer sharci ilaa hadeer kama soo saarin burcadbadeedka sharci kama soo saarin 24 sano 25 sano ayay xiran yihiin sharci darro ku xiran yihiin adduunka ma ka dhicin sharci darro dadaan la soo xukumin oo maxkamad la saarin inay xabsi iskaga jiraan dunida kama dhicin waxaan leeyahay meel walbaan ku dhibaataysanahay hadday Yaman noqoto hadday Suudaan noqoto Kenya hadday noqoto Liibiya hadday noqoto Masar hadday noqoto Turkiga hadday noqoto meel walba ay dadkayga Soomaaliya ku dhibaataysan yihiin haddana waxa loo soo jeestay kuwii Ingiriiska Mareykanka joogay adduunka oo dhan wuu nacay annagiina waa isnacibnay shalay haddaan ku xifaaltamayno ku kaftamayno qabyaalad iyo qabiil iyo fiyuusi ku raadinayna today reality-ga ayay tagtay in gacmaha la isqabsado la isku soo laabto oo dadkeeni dib u fikiraan waa muhiim ah dawladna hadday jirto waxaan leeyahay wiilasha burcabadeedka loo haysto ha laga wardoono ilaa iyo maanta wiil la soo xukumay maxkamad la soo saaray ma jiro way iska wada macna darray ku wada xiran yihiin wiilasha Soomaaliya ha loo gurmado